kulanti wacan wanaagsan daawadayaal oo Iftaax Ibraahim Cagaare iyo Maxamed Cabdi Samed waxaan joognaa xarunta ay ka soo dhacayaan codadka ee magaalada Pretoria ee guddiga doorashooyinka halkan waa goobta dadka lagu soo dhaweeyo marka la soo galayaba oo qofku markuu soo galo kaarkiisu qaadanaya uu tusaya oo eegay kadib wuxuu ogolaanaya inuu gudaha galo kadib markuu gudaha galo inuu ogolaadaan halkan buu imaanaya hello how are you good thank you halkan la soo mari doonaa intaan dhigi doonaa si aan gudaha u galo kadibna maxamed soo geli doonaa وضعي حيستان خليك الدونا محمود بقى قدها سوق الدونا أو لفتي البارة يا أنا في إنه قلب كبودي جنا يا واتهاي سو ريجيا طبعاً واركتان أو سيدا قفل با إنه سوق لا يتهاي وداداسنا وصومره كاميرا محمد بن كوري جينا يا مركان قلب كيسيبا قدها كم مقارنة وسوق هذا يسوقيا سي وسوقاته على بيسي وسوقاته هاتن وحي كم مقنع طبعاً هرين وقصيص عندنا Okay. It must come out here. Okay. Cell phone, everything must go through this thing. Okay. كدب waxaan dib ugu laabanaynaa meeshii mashiintii waxaan dhigi doonaa waa tahay waanu kasoo gudubnay meeshii dadka lagu baarayay halkan waa dhanka midige waxaa naga qabanaysa meesha dadka lagu siiyo caawinaadda qofka markuu gudaha soo galo halkan waxaa ka muuqanaysa welcome soo dhawow waxaa lagu soo dhaweynayaa xaruntii waa meel aad u qurux badan waa meel aad u baraaran gudahan tegi doonaa waxyaaba badan baan ku arki doonaa meeshan si weyn baa loo qurxiyay oo looga shaqeeyey halkan waxaa ku qoran waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuridii 25aad ee ka soo wareegatay doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ka dhacaya Koonfur Afrika sawiradii wariyaasha ka muuqdo waxaan arki karaa wariyaal xitaa BBC-da kamida waxaa kamid dadkii madaxda ahaa waxaa kamid dadkii dalkan soo maray soo hogaamiyay waxaa kamid qaar kamid guddiga doorashooyinka laga soo bilaabo 1994 ilaa iyo 2019 oo xilligan haatan aan joogno ah gudahan sii socon doonaa dhinacan midige hadaan fiirino waa dhinaca xogta laga helo marka halka albaabka ka soo gashid halkan baa imaanaysa xogta u baahan tahay helaysa magacaaga iyo taleefankaaga iyo saxiixaaga qoraysa xogta raadinaysa halkaas ka helaysa marka daba warbaahinta dhan baa halkan isugu timid inta waxa ku qoran qaybta technicalka ah oo farsamada ah waan soo tagi doonaa dhinacan iyo BBC-da meel joogto waan tagi doonaa dhinacan kale hadaan eegno waa dhinacii laga baxayay midigtan qofka markuu hawshiisa soo dhameysto ayuu halkaa ka baxayaa dhinaca shishe waa qaybta caafimaadka oo haddii ay dhacdo qof inuu halkan ku xanuunsado intuu halkan joogo ayaa la geeyaa oo maaragtay loogu sameeya hadba caafimaadka uu doonayo dhinacan kalean tegi doonaa dhinacan marka waa warbaahintii goobaha iyo warbaahinta xarumaha looga dhigay waa qalab yaroo hadda la dhisay oo isla markiiba laga saari kara meesha halkan waxaa ku qoran inek waa mid ka mid ah TV-yada waddankan Koonfur Afrika gudahaas waan tegi doonaa dhinacan kale aan sii laaban doonaa dhinacan kale aad aragtid waxaa ku qoran dhanka qaybta warbaahinta oo wixii warbaahin ku saabsan halkaan aad tegaysaa xogta u baahan tahay ayaa halkan ka helaysaa dhinacan kale waan soo soconnaa waxaan tegaynaa marka dhinacan waa News 24 oo warbaahin kale oo iyana ka mid ah warbaahinta dalkan Koonfur Afrika dhinaca kale Network 24 ayaan ka arkaynaa halkanse waa BBC-da dabcan waa meeshii aad ka arkayseen Maxamuud maalmahan inuu ka soo galayay teamkii BBC-da waa kuwan hello how are you waalaikum salaam halkan marka waa meesha aan live ka soo galaynay maalmahan oo dhan warbixinadan kaga soo tabinayay gudahan tegi doonaa waan eegi doonaa dhinacan hadaan u yara baxno dhinaca shan tegi doonaa laftigeeda maadaama dad badan halkan ay ka shaqaynayaan oo ay tegi doonaan waxaan tegaynaa meesha cuntada ay ka cunaan dadkano waxyaabahan soo fiirin doonaa ilaan intaas maalmood baa shaqaynaysaa saacado dheer baa shaqaynaysaa waxaa loo diyaariyay dadka halkan oo kale biyaha yaal dhinacaas oo kale waa maqaayadii dadka wax ka cunayeen meeshan waa qaybta kafeega lagu cabo kombiyuutaradan way diyaarsan yihiin waad tegi kartaa waad gelaysaa xogta uga baahantaa halkaas ka soo heli kartaa ilaa dhinacaas
waa soconaynaa markan gudahaan tegi doonaa marka meesha ugu xiisaha badan waa meesha gudaha ah aad arki kartid in dad badan isugu tageen warbaahin badan ay yaalaan ay joogaan kombiyuutarro badan ay yaalaan xogta ay ka soo dhacayso markay xogta soo dhacaysana waxaad dareemaysaa in shaashad waaweyn meesha lagu qoray mararka qaar cod baa soo gelaya qalin oo kale codkaasoo muujinaya inay wax soo socdaan amaba ay wax jiraan marka gudahaan u tegi doonaa kaamarooyin baa shaqaynaya warbaahinta kala duwaneed baa kaamarooyin waaweyn soo dhigtay gudaha markaan galnay hadda jaranjaradii baan ku soconnaa hoos baan ugu dhaceynaa meeshii hoose ee kombiyuutarada ay yaaleen marka meeshan waa meesha ay xogta ka soo dhacayso waa meesha dhinaca shana waan tegi doonaa shaashado waaweyn baa ku dheggan tii qaranka ee guud iyo tan gobollada dalka ee 9 gobola waan fiirin doonaa dadku qof walba wixiisu ku mashquulsan yahay qaar baa iska cashaynaya qaar baa barnaamij ku jira haddaba waxaa ila jooga oo aan laftiga soo gelin doonaa bal halkan intaan maxamuud soo gelin aan dhinacaan sharaxo dhinaca kore waa shaashadihii waaweynaa ay gobollada ku qornaayeen iyo codadka xisbiyada ay heleen iyo inta ay ka wada keeneen dhinaca dhexana shaashadda dhexana waa shaashadii qaranka natiijada qaranka ay ku qornayd xisbiyada ay heleen marka 9 gobol baa loo kala qaybiyey 5 gobol oo dhinaca ah iyo 4 gobol oo dhinaca ah wuxuu ka bilaabanaya Eastern Cape waxaa ku xiga Free State waxaa ku xiga Gauteng waxaa ku xiga KwaZulu Natal waxaa ku xiga gobolka Limpopo Mpumalanga ku xiga North West iyo ugu dambeeya meeshan dhexe yar quruxda badanna waa meeshii ay guddiga qaranka doorashooyinka qaranka ay ku soo bandhigayeen maadaama doorashadu ay laba qayb ahayd doorashooyinka qaranka iyo doorashooyinka gobollada maadaama ay u kala qaybsaneed haddaba meeshaan arkaysaan waa meesha ay inta badan wariyaasha joogaan ama xataa qayb ka mid a guddiga doorashooyinka halkan fadhiyaan xogtii baa halkan ka soo dhacaysa kadib isla markiiba kombiyuutarada lagu shubayaa shaashadaasaa laga arkayaa saacadda horta waa 8 fiidnimo 6 iyo daqiiqo iyo 18 ilbiriqsi waxay maraysaa hadda marka boqolkiiba 63.1 natiijada codadka la tiriyey iyadoo xisbiga ANC aad kor ka aragtaan inuu leeyahay 5,600,000 iyo 526 cod sida arkaysaana meeshan waa meesha ay warbaahinta kula hadlaan dadka dhinaca shana waa dhinaca ay fadhiistaan guddiga doorashooyinka oo mararka ay doonayaan inay xog dheeraada ka bixiyaan doorashadan haddaba doorashadan waxaa soo akhrinayay maalmahan joogay oo dhanka TV u soo warramayay saaxiibka maxamed cabdisamed aan u dhiibo markan mikrofoonka maxamed bal waad soo warramaysa maalmahan cabdifataax aad ayaa u mahadsan tahay doorashada koonfur afrika labadii isbuuc aan tabinaynay maanta waxaan ku sugannahay sida aad sheegtay xarunta guddiga doorashooyinka ee codadka lagu tirinayo marka hore waxaan joognay inta badan magaalada Johannesburg oo Soomaali badan aan halkaas kula kulannay sheekooyin badan aan ka soo jeedinay sida cabdifataax idin sheegay tirinta ayaa socota boqolkiiba 63 ayaa la tiriyey guddiga doorashooyinka waxay sheegeen ilaa caawa saacadaha soo socda inay filayaan in boqolkiiba 90 codadka inay tirin doonaan laakiinse natiijada rasmiga waxaa lagu dhawaaqi doonaa maalinta Sabtida cabdifataax waatay marka maxaa kula yaabnaa maadaama aad doorashooyin badan soo aragtay tii Kenya nala joogtay oo aad tabinaysay tan waa joogtaa waa tabinaysaa qaabka loo diyaariyey barnaamijyadan ka waran doorashada ee koonfur afrika runta cabdifataax aad ayuu u horumarsan yahay qaabka ay South Africa doorashada ay u diyaarsadeen sidoo kale goobaha codbixinta dadka waxaad u malaysaa dad aad wax u fahansan dimuqraadiyiin ah si fudud ay u codeynayeen shalay markii goobaha codeynta waxaan kula kulmay dad da' sidoo kale waxaan kula kulmay dad dhalinyaro ah family ama qoysas ilmahooda yararka wata oo xitaa codeynaya waxaad u malaysaa marka dadkan in ay inta badan aad u fahansan yihiin codeynta sidoo kale cabsi badan kuma jirto oo macnaha dhanka codeynta iyo goobaha laga codeynayo si fudud ayuu qofku soo gaari karaa goobtan hadda sidoo kale lagu tirinayo codbixinta waa goob aad u weyn sidoo kale waxaa xusid mudan tviyada dalkan khaasatan tvga SABC oo ah tvga dalkan macnaha qaranka iyo tviyada kaleenta sida ay u tabinayaan weliba
tvda internationalka kor ayay jiraan laakiin ayaga stuudiyaal waaweyn ayay meeshan ku yeesheen 24 saac xogta ayay gudbinayaan marka waxaad u malaysaa cabdifataax si guud diyaargarow xoog badan inuu waddankan u samaystay qaabka doorashada ay u dhacayso waddan horumarsan ilaa iyo 1994 markii lasoo afjaray nidaamkii midabta koorka Nelson Mandela iyo xisbigiisa ANC ay talada qabsadeen waa doorashadii lixaad oo dadka koonfur Afrika ay codeynayaan waxaa jirta shalay kalanta dadka iyaga codeynayay dad 18 sano markaan gaaray oo macnaha dhashay dawladdii 94 kadib dadka koonfur Afrika runtii waa doorashadan waxay sugayaan waxaa waaye xisbiga ANC oo hadda talada haya waxaana la tiriyay waxaa waaye 9,875,000 oo cod ayaa la tiriyey oo boqolkiiba 60 codadkii waxay marka ka dhigan tahay in adiga 15 milyan ku dhawaad ay codeeyeen laakiin horaantii waxa isdiiwaan geliyay waxay ahaayeen 27 milyan dalkan dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 57 milyan ilaa 58 milyan ayaa la gaarsiiyaa dadkii isu diiwaan geliyay 27 milyan waxaad u malaysaa 10 milyan oo ka mid ah in codkooda ama si sax ah noqonin ama si aysan codeynin cabdifataax waxaa xusid mudan in dhalinyarada inta badan aysan doorashadan qayb weyn ku lahayn oo warbixinadii hore aan deynay oo sheegeen in inta badan ay isbeddel badan uusan jirin sidaas daraaddeed aysan rabin inay ka qayb qaataan adigaan kugu soo wareejinaya cabdifataax markaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdisamad wax badan baad halkan ka soo tabinaysay dabcan koonfur Afrika doorashadeeda iyo qaabka quruxda badan ay u sameeyeen goobta ay ka soo dhacayaan natiijooyinka intan kaliya kuma koobna markaad eegtid qaabka quruxda badan ay dalka u dhisteen qaabka quruxda badan ay u sameysteen wadooyinka mararka qaar waxaad leedahayba malaha maba joogtid meel Afrikaana oo waxaad joogtaa dal kale markaad eegtid nidaamka xitaa say dadku u ilaalinayaan markii qofku baabuur wato kale haddaad xitaa degdegsan tahay qofka ay ku adag tahay inuu waddadii soo gooyo wuxuu ku leeyahay niyahow sharcigii baa lagala laabeynaya iyo maalan dhibcaha darawalnimada laga goosanaya marka nidaamka aad buu u wanaagsan yahay kolley waxaan filayaa in dad badan ay wax badan ka baran doonaan meeshanna waa meesha ay natiijooyinka ugu dambeeya ka soo dhacayaan annagana halkan baan ku sugannahay haddaba wixii ka soo kordhan waan la soo gudbin doonaa waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo maxamuudba sidaas iyo nabadgelyo